السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي waxaan idin leeyahay soo dhawaada haddii aad hore noola joogto waa ku mahadsantahay la joogaaga haddaad nagu cusubtahay waxaan ku leenahay soo dhawow ha inaga hilmaamin sheerta commentiga iyo subscribe-ka intaba waxay inoo yihiin dhiirigelin mahadsanidin. maanta waxaan idin wadaa faa'iidooyinka ku jira geedka eggplant-iga ee afka khalaadka lagu yiraahdo insha Allah isla socod wanaagsan. faa'iidooyinka caafimaad ee ku jirta eggplant-iga waxa uu ka mid yahay qudaarta inta badan loo isticmaalo suugo ahaanta. waxa uuna ka mid yahay sida loo isticmaalo yaanyada iyo baradhada. geedkan loo yaqaano eggplant-iga waxa ku jirto vitamins badan iyo minerals aad u fara badan. waxa uuna sameeyaa ama laga helaa nafaqo iyo caafimaadka jirka. waxaa jirto noocyo kala duwan ee ka mid ah geedkani waxaana soo saara wadamo badan sida Soomaaliya, India iyo Kenya. geedkan eggplant-iga lagu magacaabo waxa uu jiri jiray wadamo badan balse Soomaaliya waxa uu ku soo biiray mar dhow oo ay beerashadiisa bilaabeen. haddaba waxaan halkan ka sii anbaqaadi doonaa faa'iidooyinka caafimaadka ee ku jirta geedkan eggplant-iga lagu magacaabo isla socod wanaagsan. waxa ay kobcisaa caafimaad qabka maskaxda bini'aadamka. waxa ku jira phytonutrient, niacin iyo antioxidant oo muhiim u ah maskaxda. waxa ayna soo saartaa dufanta ku jirta maskaxda. caafimaadka wadnaha. waxa ay caawisaa ilaalinta kolestaroolka ee dhiigga iyo tubooyinka wadnaha. caafimaadka wareegga dhiigga. waxa ku jira nafaqooyin muhiim u ah wareegga dhiigga ee qofka bini'aadamka. caafimaadka caloosha. waxa ku jirto high fiber kaasoo ka difaaca in ay caloosha weynaato ama ay isbedesho qaabkeeda. waxa ku jiro xad yar oo kalooriin ah. sidoo kale ma lahan fat oo waxay ka caawinaysaa in aad dhinto culeyskaaga. waxay ka yareynaysaa xanuunada macaanka sababa. sidoo kale iyadu waxa ku yar xaddiga carbohydrate-ka. sidoo kale waxa ku yar xaddiga sokorta. wayna control. waxa lagu daweeyaa kansarka. waxa ku jirto polyphenol ka oo lagu daweeyo kansarka. sidoo kale waxa ku jiro dheecaan lagu magacaabo disulfiram kaasoo lagu daweeyo kansarka ku dhaca unugyada bini'aadamka. waxay ka saarayaan iron-ka ku jira jirka. waxa ku jira vitamins iyo minerals badan kaasoo ay ku jiraan maqaarka geedka. tusaale magnesium iyo potassium. intaas waxaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkeeni caafimaadka oo kaga hadlaynay faa'iidooyinka caafimaad ee ku jirta geedkan eggplant-iga afka khalaadka ah lagu yiraahdo. intaan kulanti ku kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo amaano Allah. inaga hilmaamin sheerta, commentiga, subscribe-ka. haddii aad ka heshay videogani commentiga inoogu reeb.